ba be bi bo bu. ubadka ka soo jeeda qoysaska ku barakacay gudaha dalka waa kuwa fursadaha waxbarashada aan helin intooda badan marka loo eego ubadka asaagooda ah ee ku nool deegaanka caqabadaha haysta waa iyagoo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ay xoogga saaraan nolosha kale halka aan la xoojin fursadaha waxbarashada oo ah dhab ahaan kuwa bedelaya baahida maanta ka muuqata reeraha dandaradu haysato magaalada Dhuusamareeb waxaa ku nool boqolaal caruur ah oo qoysaskoodu kala soo baxsadeen al-shabaab oo si awood sheegasho ah in badan qoysaska ku nool deegaanada ay ka arrimiyaan kaga kaxaysta ubadka oo ay sheegaan in ay waxbarayaan kuwaasi oo mar dambe waalidku ka war helo in ay ku dhinteen dagaalo amaba la askareeyay waalidiinta qaar ayaa loo ciqaabay caruurta ay ka fogeeyeen deegaanada al-shabaab waxaana kuwooda soo tagay lagala wareegay hantidoodii taasoo sababtay in reeraha soo qaxay ay dulsaar ku noqdaan qoysaska qaraabada la ah amaba ay gabaadsadaan aqallo cooshada ka samaysan kuwan ayaa ka mid ah ubadka waalidkood door biday in ay ka soo fogeeyaan deegaanada al-shabaab taasi oo ahayd go'aan naftooda ka badbaadiyay in loo askareeyo dagaalada kooxda ku jirto maamulka sare ee dugsiga Galgaduud ayaa macallimiin iyo xarun waxbarasho ugu deeqay caruurtan inkastoo agabka waxbarashada iyo itaalka waalidkuba yahay mid aan kaafin karin adeegyada xaruntani u baahan tahay si xaruntani u noqoto mid dhammaystiran maamulaha dugsiyada Galgaduud Sheekh Maxamuud Macalin Axmed Sheekh Soomane ayaa ka warbixiyay hirgelinta xaruntan waxbarasho ee maamulka dugsiga uu ku tabarucay salaanka bacdi baahida loo meeshan ka jirta way iska muuqataa waa arkaysaan oo ilmihii sujaayaday ku fadhiyaan kuraas ma haystaan musqulo ma haystaan hambiyood ma haystaan derbi ma haystaan jingaday wax ku baranayaan xilliga kuleylkooda aragteen waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo wasaaradda federaalka iyo hay'adaha caalamiga iyo NGO-yada iyo samafalayaasha dadka muxsiniinta dhammaan in sida aan anagu u soo xilqaanay ka iskuulka Galgaduud ahaan maamulkiisa oo intaas ugu tabarucnay ina idinkuna insha Allah taala inta ka dhiman u soo dhameystirtaan maxaa yeelay dadka muslimiinta ah inay iskaalmeeyaan ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu boorinayaa nabigiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam sidoo kale waana mid kaliya wax lagu gaari karo marka insha Allah waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo warbixintayda baahida iskuulka halkan looga baahan yahay iyo baahiyaha uu u baahan yahay waan bilownay hal dhameystiro waalidiinta caruurtooda wax ku barata xaruntan cusub ayaa ka codsaday cid kasta oo ka caawin karta dhamaystirka adeegyada waxbarasho ee ka dhiman xaruntan sida kuraas miisas fasalada oo la kordhiyo iyo labiska iskuulka caruurtan ay u xiran lahayd waxaan naga dhiman bini'aadamku waa iska qadar yar yahay iskuulka tabartiisii waxay la ekaatay inuu laba qolo jiingada dhiso wixii kaloo dhan way dayacan yihiin buugaag yar buu ardaydii siiyey uniform male kuraas male يعني ما ركتي مال مسقولة مال سكول كواد ركتين ديرر كيسي يمدنا مال وبلو مركب واحد ربنا إن كعد سنة بالشدة عالم لما أنتوا قفوا الباين وكقاته كالنتي ما ركتي وكأوده ugu dambeyn madaxa waxbarashada degmada Dhuusamareeb Maxamuud Axmed Cali oo goobtan waxbarasho kormeer ku joogay ayaa isna ka waramaya baahida u muuqata wasaaradda waxbarashada Galmudug oo aan ku aragnay maaragtay waxa weeyaan baahiyo aad u fara badan oo ay ugu horeeyaan galaasyadii oo ku yar ardayda aan lahayn kuraas iyo miisas uniform midna si ay nala wadaageen ama ay noo sheegeen waalidiinta halkaan maaragtay waxa weey ku sugan ama ilmahan isugu keenay in ay jiraan tiro intaan ka badan jooga maaragtay waxa weey area-dan ama ku nool oo ah qaxooti ka soo baxay maaragtay waxa weey deegaanada bari ee gobolka Galgaduud iyo Mudug qaybo ka mid ah inay aad u joogaan oo tiro badan yihiin meel ay hadda wax ku bartaan ama fursad ay wax ku bartaan aynan haysanin waa wax maaragtay waxa weeyaan aan ka damqanay aan aragna maaragtay waxa weey baahida halkan ka taagan aan rajeynayno insha Allah ka wasaarad ahaan ama ka wasaaradda waxbarasho ahaan inaan wax ka qaban doono haddii Ilaahay idmo